madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa kulan ballaaran xafiiskiisa kula yeeshay wafdi ka socday dalkaasi Masar oo ka koobnaa 14 xubnood. Wafdigani oo hogaaminayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalalka Afrika u qaabilsan. Wafdigani oo ka koobnaa wasaaradaha arrimaha dibadda, ganacsiga, waxbarashada, beeraha iyo gaashaandhigga. Kulankani oo muddo qaatay saxaafaduna dibad joog ka ahayd markii uu soo idlaaday waxa si wada jir ugu warbixiyay kulankaasi iyo waxyaabaha lagaga wada hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Xuseen Aadan Cigadeer waxaana yiraahdeen saaka waxaa la kulmay madaxweynaha wafdi ballaaran oo ka socda wadanka Masar. wafdigaas wuxuu nala joogay ilaa 2 casho, wuxuu ka koobnaa 14 qof. waxa wafdiga hogaaminayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee qaabilsan Afrika Maxamed Idriis. wafdigu intii uu joogay wuxuu soo maray Berbera, waxay la kulmeen wasaaradda la kulmeen dhowra oo badan. wuxuu wafdigu ka kooban yahay xubno ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda ganacsiga, waxbarashada, beeraha, gaashaandhigga intaba. saaka markay la kulmeen madaxweynuhu wuxuu soo qaaday xiriirkii iyo cilaaqaadkii taariikhiga ahaa ee naga dhaxeeyay innaka iyo Masar. wuxuu kala hadlay amba uu sheegay geedi socodkii siyaasadeed ee Soomaaliland. wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday abaarta baahsan ee inna saamaysay waddanka. wuxuu ka codsaday in arrinkaa ay wax nagala qabtaan. waxay ku ballan qaadeen arrinkaa in wax nagala qaban doonaan insha Allah biidhnilaahi. kursi ballaaran oo Masaari ayaa dalka ku sugnaa muddo 2 casho oo maanta waa maalintii saddexaad. waftigaasi waxay u yimaadeen guud ahaanba inay dawladda Soomaaliland ay kala hadlaan arrimo badan oo xagga iskaashiga ugu horeyso xagga xiriirka Soomaaliland iyo Masar u dhaxeeya. sida Dr. Saad sheegay waa mid taariikhi ah oo soo jireena. runtii wafdi baaxadda loo Masaarida inooga yimaado markii ugu horeysay dalkeena yimaado waxay aad ugu bogeen runtii nabadda iyo deganaanshaha dalkeenu mataqaana ku sugayay maanta. arrimo badan waa la isla soo qaaday oo ka horeeyo ganacsiga iyo maalgashiga ay ku jiraan beeraha si wax looga qaban lahaa, xoolaha, arrimaha sheegeen biyaha, waxbarashada sidii ay u dhisi lahaayeen ama ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoonta iskuulada iyo jaamacadaha Soomaaliland. waxay ballan qaadeen inay soo diri doonaan professorro ku takhasusay noocyada kala duwan ee cilmiga oo ay ku caawin doonaan jaamacadaha Soomaaliland. waxay sheegeen in iskuulo dhisi doonaan sanadkiiba ugu yaraan 2 ilaa 3 iskuul oo ay ka dhisi doonaan dalka. guud ahaanna waa wafdi ay dawladda Masar ugu tala gashay in ay dawladda Soomaaliland dhinacyo badan kala wada hadlaan. dhinaca kalena ambassador Waliid Ismaaciil oo ambassadorka u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa ka warbixiyay kulankaas ay la qaateen madaxweynaha Soomaaliland iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen, isagoo tilmaamay in xiriirka iyo iskaashiga labada dal ay ka wada hadleen. sidoo kalena wuxuu ka sheekeeyay taariikhda qotada dheer ee Soomaaliland iyo dalkaasi Masar u dhaxaysay muddadii hore. isagoo ka hadlayna wuxuu yiri It's a big pleasure and big honor for me to be here. Meet my brothers from Somaliland. Today we had the privilege of meeting His Excellency the President of Somaliland, who is a great figure, great leader, and someone to learn from. I also had the pleasure of meeting their Excellencies, the Minister of Trade, the Minister of Foreign Affairs. We are trying to find best ways to achieve cooperation, extend the brotherly relations that goes back to thousands of years between our two nations. Inshallah, you will be hearing from us more often. I hope I will be a familiar face here. Ismaan Ahmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.